sidaad u jeedaan halkaani waa magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. waxa halkaan idin muuqdana waa dad qaxooti ah ee ka dalbanaya hay'adda qaramada midoobay in ay meel uga kaxayso waddankan Koonfur Afrika. habeenno badan iyo maalmo badan ayay halkaan baryayeen cuntada ay ku karsanayaan halka ay dhex joogaanna waa mool dukaaman ahaan jiray ee UN-tu dhinacay ka deganeeday. waa ay xireen shaqadii, waa ay istaagtay, cid ay hadal ka dhagaysanayaan ma jiraan sida ay sheegeen. waxayna isugu jiraan Soomaali, foreign, Congolese iyo weliba nooc kasta ee ajaaniba ee ku nool waddankan Koonfur Afrika. sawiradaas aad u jeedaan ayay meesha soo dhigteen, waxayna ku dalbanayaan in UN-tu dhinac ay uga kaxayso waddankan Koonfur Afrika. waxay leeyihiin ammaan ma ahan Koonfur Afrika, oo sidaas aad arkaysaan ayaa lagu dilaa. sawiradaas aad arkaysaan waxay muujinayaan dilalka ay dadka deegaanka ee waddankan Koonfur Afrika u dhashay ay u geystaan ajaanibta ku dhex nool qaarkood. waa ilmahoodii, waa carruurtoodii, waa haweenkoodii, waa odayaashoodii, dhammaantood looma kala harin. haba ugu badnaadaanee qowmiyaddan la yidhaaho Koongoliiska. Soomaali kama marna. waxaan kaloo ku arkayo jooga meesha dadkan Bangladeshka. si fiican u daawada bal muuqaalka adinkaaba yaabi doono. aan kaakin dhex baxo. sotaad aragtaan waxa meesha ka socda waa mool dhan ee lagu ganacsanayay ee sidaa loo xiray. waxay doonayaan in qasab ay UN-tu u qaado. waxay leeyihiin Canada ayaa nooga qaadaya. anaga ayaa aragnay. daawasho wacan. waxaan ka codsanayaa janaalka inaad subscribe dhahdaan, muuqaalka aad sii sheer garaysaan.